sheekadan waa sheeko xaqiiqo ah waxayna ka dhacday gobol ka mid ah gobolada dalkeena Soomaaliya waxayna dhaxmartay nin iyo xaaskiisii. sheekadan waxaan u maleynayaa dadka intii maqashay way maqleen laakiin intiina kale inaad aad uga heli doontaan. waxa la yiri bari ayaa waxa saaxiib ahaan jiray laba gabdhood. labada gabdhood mid reer bay lahayd oo waa la qabay markaas ay cunug yar dhashay macnaha reer cusub ay ahayd. gabadha kalena dhalinyaro ay ahayd gabadha gashaati ay ahayd. gabadhii xaaska ahayd ninkeedii ayaa wuxuu damcay inuu la sheekaysto gabadha kale ee dhalinyarada ah laakiin ninku ma yaqaano labada gabdhood inay saaxiibo yihiin macnaha isagu isuma yaqaano. gabadhii markay muddo ilaa isbuuc ah sheekaysanayeen iyo ninkii yaa gabadhi gabar fiican bay ahayd waxa istiri saaxiibadaha khiyaamina wax kasta u sheeg macnaha ninkan hadduu lacala ku guursado way ogaan doontaa intay gadaalka ogaan lahayd hadda u sheeg. kabacdi gabadhi gurigii bay timid saaxiibadeed bay u timid tartiib bay ugu sheegtay sheekadii inuu ninkeeda la sheekaysto oo maxay ahayd uu xiriir ka dhaxeeyo ayay u sheegtay. ninkaygu waxay tiri hadda baan reer cusubnahay cunugii koobaad baan hadda isu dhalnay waxaas ma aaminayay tiri walaaleer ma reerkayga iga duminaysaa ado cadeyn ayay tustay fariimaha isu direen iyo waxbay tustay. kabacdi gabadhii way ku qanacday waxay tiri marka ninka la sheekayso waxba ha dareensiinin bay tiri aniga iyo adiga inaan isnaqaano ha dareensiinin inaad sheekada ii sheegtay anaga waxa ma dareensiinayo la sheekayso wax yar markaad wada sheekaysataan weliba anigu mustaqbal baan diyaar u ahay reerkayga iga soo doon ku dheh. gabadhii kalena waxay tiri haye reerkayga. gabadhii ninkii markii ay u sheegtay ay ku tiri aniga waxaan doonayaa mustaqbal waxaan rabaa inaad i guursatid ayaa wuxuu ku yiri walaalo macaani hadda waxba iga kala daadsan arrin baasi iga ah mar dhow safar baan rabaa inaan galo lacag iyo waxba meel ka sugayaa muddo 2 bilood kadib waxaan wax walba dhameysanaynaa oo reerka ka soo doonayaa laakiin hadda waxaan ka doonayaa inaan qodbasiraysto waxaan la yiraahdo maxarxadka aan kugu guursado 2 bilood kadibna waa balan aniga ayaa ka soo doonay reerka laakiin hadda iga ogolow 2daas bilood inta aan mashquulsanahay wax iga kala xiriiran yihiin inaan ku sii mehersado. gabadhii marka waxay tiri waan ka soo fikirayaa saaxiibadeed ayay u soo noqotay oo ah isaga xaaskiisii markaas waxay ku tiri ninkii markaan ku iri anigu mustaqbal baan u baahanahay iyo guurso wuxuu igu yiri waxba iga kala daadsan oo arrin baasi iga ah waan isqodbasiraysanaynaa hadda 2 bilood kadibna reerka ayaa ka soo doonaya. gabadhan marka uu ninku qabo waxay ahayd gabadh aad u caqli badan bay ahayd waxay ku tiri hayo ku dheh qodbasirayso ku dheh qodbasirada laftirkiisa ka ogolow waan ka ogolahay ku dheh. isagii ayay wacday waxay tiri waa diyaar qodbasiradii waan ka ogolahay waan isku guursanaynaa isagana hadda diyaar nin la yiri waan ku qodbasiraysanaya wuxuu yiri okay wax kasta caawaan dhamaynaynaba caaw markay tahay 2 saac hotel hebel baan keenayaa wadaad isu keen meheriya iyo 2 nin oo makhraatiyaal ah halkaas ayaad igu imaanaysaa hayay tiri saaxiibadeed bay u soo noqotay way u sheegtay waxay tiri okay balantu waa caawa Soomaaliya 2 saac hayay markii ay noqotay 2 saac bay soo raaceen labadii gabdhood way soo labisteen labadoodaba indhashareer bay soo xidheen way soo raaceen isagii ayay waxay ugu iman doonaan isagii ayay soo aadeen dhinaciisa. marka gabadhan xaaskiisii way iska aamusantahay ma hadlaysa laakiin tan kala mar walba telefoonka ka qabanayso oo macnaha uu telefoonka ku soo hagaya uu leeyahay halkaas igu imow ninkii wadaadkii waa diyaar iyo dadkii makhraatiyaasha ahaa hotelkan soo istaag iridkiisa qolka lambarkaas ah igu imow. markii labadii gabdhood ay soo raaceen intay soo labisteen oo indhashareer ay soo xidheen ay soo raaceen waxay soo aadeen dhinacii iyo hotelkii hoostiisa markay yimaadeen way wacday gabadhii la sheekaysanay waxay wacday ninkii wuxuu ku yiri qofka receptionka jooga waan u sheegay gabadh magacaas la ii imaanaysan inay magacaaga u sheeg kadibna soo gudub soo gal. qofkii receptionka jooga magaciiba weydiiyay way sheegtay gabadhii la sheekaysanay way noqotay marka dib ayay u noqotay dhinacii gurigii gabadhii isagu uu qabay ee xaaskiisa ahayd yaa soo gashay hotelkiisa u soo socotay qolkii uu soo tilmaamay bay albaabka iska soo furtay way soo gashay isagu uu fadhiyaa 3 nin midkii wax meheerinay iyo 2 makhraatiyaasha ahaan way fadhiyaan way soo fadhiisatay marka iyadiina cabaar wax yar markii wada hadleen ninkii wax meherinayay wadaadka wuxuu yiri marka waxaan waa qodbasire waxa laga yaabaa bari ka maalin in la i weydiiyo oo la igu yiraahdo gabadhan maadaama heri marka gabadhan indhashareerka iska furto si aan wajigeeda u arko oo aan u garto macnaha qofka aan meherinayo.
ayadii kalsooni aan nashaarka way iska furtayba fag ninkii naxdin iyo yaab iyo ama kaag ku dhacay naatan maxay ahayd aawatii kale na aawa cunugii yaraa afkiisa waxaa la yidhi waxaa kasoo fakatay uun aawa cunugii yaraa na wiilkii aad kaga soo tagtay aawa wiilkii yaraa ayadiina qosol wiilkee haddaaman isguursanaynaay reer cusubaaba nahay maxay tahay wiilkii waxaad ka sheekeynaysa soo fadhiisaa la isu keen meheriye nimankii way yaabeen ninkii waxaa la yidhi wuu yaabay wuu ama kaag iyo yaab kula waalan gaadhay nimankii marka waxay ku tiri anigii ninkan waan isqabnaa nin iyo xaaskiisii ayaan nahay wax la meherinay meesha ma jiray orda iska socdaa isagiina waxay ku tiri dadkan aad soo lugoysay aad ku tiri naag badii meherinaysaan lacagtoodii aad kula heshiisay sii naagta marka lagu meheriy lacagtii aad siin lahayd sii iyagiina waxay tiri iska socdo lacagtiibu sii way iska baxeen isagiioo yaaban oo madaxa inuu qarxa oo ka yaaban yahay bay waxay tiri marka soo fadhiiso anigaa wax kasta ku fahamsiinay sheekada dhan aniga kaa dhaadhicinay min bilow ilaa dhammaad ayay uga sheekaysa sheekadii oo dhan iyo sidai ay wax u jireen bas wuxuu yidhi marka ina mari gurigeenii baan aadaynaa intaan layna ogaanin aynaan kashifmin dariska iyo qaraabada iyo dadka ehelka ina ogaanin ina mari mayay tiri abow naag dhan oo lala guursan raymaa guri iska aadaysa gurigayga waan aadayaa laakiin hal shardi ayaan ku aadayaa bay tiri gurigayga shardigan wato wuxuu yahay 2 arrimood inaad ii samaysid kow horta gabadhii hawsha ila waday ee aniga saaxiibaday ahayd ee adiga ku khiyaantay inaadan waxba u raacanaynin oo aadan qabsanaynin oo aadan la hadlaynin oo gabadhaas ammaan siinaysid shardiga labaad lacagtii maseeratirka ahayd ee aan xaq u lahaa markii aad ila guursatay aad isiin lahayd ilaan hadda waa ila guursatay inaad isiisid haddii kale aan hotelkaasaan joogayaa dadka dhanna way ina ogaanayaan halkaasaa la inoogu imanayaa garteennana lagu qaadayaa isagu marka ma doonayay in la ogaado oo arrinta ay ka xumaato marka wuxuu yidhi waan ogolahay labadaada arrimoodba waan kuu fulinayaa lacagtan waan ku siinayaa gabadhaana ammaan baan siinayaa laakiin ina mari waxaan aadaynaa gurigeennii sidii ayay ku baxeen oo ay gurigoodii ku aadeen bal gabadhaa ka waran caqligeeda maasha allah gurigeediina way badbaadsatay ninkeediina waxay u dhigtay 10 shoog baa ku dhacay macnaha naag dambe ma aaminay waxaa la yidhi hotelka ka baxay isagoo le naag dambe inaan aaminay ilaahu iguma ogid oo weliba indha shareer qabta anay indha shareer ii soo xidhanayaan oo isirayaan miyaa wale dib dambe ulama hadla naag indha shareer isagoo leh ayuu iridka ka baxay baa la yidhi wax kasta markii lagu sheego waxay ku fiican tahay inaad indhahaaga ku aragtid gunta iyo gabagabada salka soo taabatid macnaha markii saas loogu sheegay arrinta hadday boodi lahayd oo kuleetiga qabsan lahayd ka waran adoo shalay guursaday baad naag la sheekaysataa inaad ila guursataad rabtaa waan ogahay saaxiibadii baad la sheekaysataa waa ta cadayntii waa la i tusay waan arkay hadda warqadaydii keen hadday dhihi lahayd wax badan baa ka halaabi lahaa laakiin tartiib si caqliyeysan oo xigmadaysan ayay gurigeediina ku badbaadsatay ninkiina 10 lama ilaawaana ay ugu dhigtay maasha allah